ciidamadan guryaheena ku soo siqayay maalin badegmo iyo tuulo soo qabsanayay hadeerna aynu ilaa iyo hadda sahlanayno waxaad moodaa in ayan iyagu waxba la harayn oo iska daa ciidamadeena ee dadkii shacabka ahaa ee wadada marayay iyo dadkii wala iyo dadkii xanuunsanayay iyo mayd maxaa la sii sida ugu dambeeyo rakaabkii gaariga ahaa ee halka marayay ninka sheekha ahaa lagu dilay wali inaynu inagu turaale ku jiraa moodaa ilaahay dukuro iyana ayan waxba la haray qaniya ka goysa waxaanu caalamka iyo dawladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed ba aan u sheegaynaa dulqaadkii waa naga soo dhamaaday intaanu dulqaadan karaynay waanu dulqaadanay waanu awoodnaa tol baanu u leenahay allah caadilo guusha nasiiyay baynu haysanaa wixii bishan Ramadaan ka dambeeya ilaahay aduu ku roon yahay maanta iida la iiday waxaanu la haraynaa ma jirto haddii reer Sheekh Isxaaq inaba aqli uu ku dambeeyo caruurahooda ha naga kaxaystaan guryahoodii ha kula noqdaan deegaankooda ha ku ekaadaan dalka yaga ha nooga baxaan oran mayna naga guuro gurigeynba iyo goobta joogsada waxaanu leenahay deegaankiina iyo dalkiinaba ku noqda walaalayaal inama wada qaado deegaankeennu taladayadu inama wada qaado wiilka Baydhabo jooga iyo wiilka Hargeysa jooga annaga nooma kala duwana wiilka Berbera jooga iyo wiilka Baraawo jooga Soomaalinimada ka Soomaaliga abaabana xiga ee Baydhabo jooga iyo ka Berbera jooga ee Soomaaliga ah baana xiga inaga maxaa ina deeqa inaga midnima ina deeqda ilaga ilaahay nimcadan uu ina siiyay ee quluubteena isu soo dumay ee danteena inaynu ilaashano waxa laalay iyo wixii wax yeelaya ee dhibaato u geysanaya arinta uu sheekhu ka hadlayay cadawgu inagu soo daayay ee khamriga ah la rabo in wiilasheena la isku dilo sidaynu uga hortagi lahayn waxa laalay wixii midnimadeena wax yeelaya sidaynu u ilaashan lahayn yaa ina deeqda oo ilaahay aduu ku roon yahay inaynu ilaashano oo ku fara adeegno loo baahan yahay waxa ina deeqda in aynu u midowno oo aynaan waxba kala harin dhibkan ina dul saaran sidaynu isaga qaadi lahayn waxa ina deeqda dalkeena iyo deegaankeenna oo inoo xora oo wiil asaageeni uusan inugu haysan ama inugu handadayn waxa ina deeqda inaynu talada Soomaaliyeed ka mid noqonno oo aynu go'aan ku leenahay aan la inoo talin waxa ina deeqda in wadankeena iyo deegaankeenna qof kasto Soomaaliyeed uu ku soo dhawaan karo degi karo oo ku noolaan karo oo aan wiil kale oo Hargeysa ka yimid uusan ka kaxayn karin oo ka eriyi karin waxa ina deeqda inaynu Allah Azza wa Jalla si xora u caabudno